waxaa ka mid oo amniga walaal xumaynaya in xuquuqdii muwaadinka ay dalow ka sii dhacayso waxaa kow ka ah oo ogtihiin xuquuqda muwaadinka ee shakhsiga haddii aynu ka hadalno ee shacabka waxaa ka mid ah in muwaadinkii la rabay in dowladdiisu ay karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisaba ay ilaaliso in si dhib yar loogu wareejiyey quwado shisheeye oo ay ku wareejisay dowladdii uu u dagaalamay sharafteeda iyo karaamadeeda in la ilaaliyo walaal waxaa ogtihiin in aanay arrintu ku koobnayn keliya waxyaalaha amni darrada keenaya ciidankii amniga ka shaqaynayay ama shaqaalihii dowladda in kolba qof sidii la rabo qofkii la rabo loo saaro waxaa ugu dambeeyey cabdalla oo 10 sano oo ka mida naftiisa u huray marka dadka qaarkii ay Norway iyo ka shaqaysanayeen hay'adaha caalamiga ah 10 ku qaadanayeen $600 iyo $100 iyo mushaar la'aanba dalkan kaga shaqaynayay inuu ka difaaco cadawga ummadda Soomaaliyeed oo uu dhiiggiisa iyo naftiisaba u huray in si dhib yar walaal darajadii iyo looga xayuubiyay iyo kaliya inaan lagu eekaynin xilka laga qaadee wixii karaamo uu lahaa oo dhan inta lagu tuntay ummadda Soomaaliyeed lagu horqaabiyay amni darrada qayb bay ka tahay waayo goordhow askariga ama ninka ciidanka ah sarkaalka ah inoo shaqeeya sidee buu aamini karaa inaan taa ku dhacday cabdalla aan isaga ku dhacaynin waxaynu walaal saarnay aynu qarka u saaranahay in dalkan isu rogo dictatorship buura waxaa ogtiin walaal kaliya maaha in siyaasiga laftiisii aanu haysanin space uu ku shaqeeyo oo xorriyadii shakhsiga ahayd iyo tii dadka dowladda u shaqeeyay inta laga soo gudbay tii siyaasiga loo soo gudbay oo harcad loogu daatay xisbiyo dadka madaxa guryahoodii loogu daatay walaal oo ciidan loo diray oo ay ogtihiin iyadoo dambiga kaliya ay galeen ee la sheegaya ay tahay inay qaybinayeen lacag ay dawlad ku ridaan waxaanaynu ka warhaynaa dawladda hadda joogta inay lacag ku timi oo iyadoo aanay qaybinaynin inaanay quraan akhriyaynin ay lacag qaybinaysay markii ay rabtay inay soo baxdo walaalayaal waxaynu ognahay in ay amni darrada xumaynayso in mar walba la carqaladeeyo maamul goboleedada waa ogtihiin maamul goboleedadu waxay kaalinta koowaad kaga jiraa sugidda amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay koow ka yihiin oo deegaanada maanta dalku federaal buu qaatay deegaanada badankooda waxa gacanta ku haya maamul goboleedada dagaalka ay shabaab ku hayaan iyo ta ay dawladda federaal ku haysana waxa 100 jeer badan ka ay ku jiraan maamul goboleedadu iyagoo waliba budgetka ay helaan ay u helaan dadaalada ay ugu jiraan inay amniga dalka sugaana ay aad u yartay marka in dawladdu ay juhdi ka badan kii ciidamada ay ku bixin lahayd dhisidooda ay ku bixiso in maamul goboleedada la dumiyo wax la aqbali karo walaalayaal maaha waa ogtihiin Garowe iyo Kismaayo iyo Dhuusamareeb marka aynu tagno walaal kuma wadana bulletproofyo waxaynu ku wadanaa gawaadhideena caadiga asxaabteena suuqa ugu sheekeynaa iska lugaynaa haddii cid amni ka shaqeynaysa maamul goboleedada ka shaqeynaya maantana waa ogtihiin dawladda federaalka halka ay kala marayaan dawladda federaalkii waxa soo ceebaa oo ay leedahay intay halkan timaado kama difaacdo oo ceeb wax la difaaci kara maaha waxay isku daydaa inay daaha dibadiisa xukuumadda ay ku dhuumato waxay walaal u isticmaashaa mudanayaal kharashkii dawladda waxa loo isticmaalaa meel aan munaasab ahayn waxa lagu bixiyaa Twitter iyo Facebook si ama dad dibadda jooga waxa laga yaabaa iskaba ladanba ayaa halkan $10,000 looga diraa si ay dawladda u amaanaan askartii dawladana $100 baynu walaal u laanahay image-ka dawladda laakiin anagu waxaan leenahay laguma soo celin karo Twitter iyo Facebook maadaama la yiri soo gaabi hadalka waan soo gaabinayaa waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado waa ogtiin inta jeer aanu isku daynay in halkan maxaa ku dhacay waa ogtiin inta jeer aanu isku daynay in waxa ogtiin inta jeer walaalayaal aanu isku daynay in ra'iisul wasaaruhu halkan yimaado
ra'iisul wasaaruhu juhdiga uu ku bixiyo in aanu halkan iman ayaa ka badan juhdi kasta oo kale oo dadaal kale oo siyaasadeed oo kale uu qabto waxa ka badan ka uu ku bixiyo in aanu ummadda Soomaaliyeed codkii waxba ku dhacay ma hadalkan aad loo jecleen walaal waa ogtiin wasiirada juhdiga lagu bixiyay inaanay halkan iman ilaa uu qaar yar oo kamid oo Ilaahay u naxariistay mooyee waa ogtiin qaar kamid xataa in been loo soo abuuro isha laga soo duubay markii aynu rabnay inaynu la xisaabtano aynu hor nimaado baarlamaanku 3 shaqo dalkan u hayaa annagu ammaan kama shaqeyno askar ma xukunno saddexda shaqo waxa weeye inaanu kor joogtayno dawladda inaanu sharciga dejino iyo inaanu ummaddiina soo dooratay codkooda ku hadallo aanu matalo saddexdaas shay baa ummadda Soomaaliyeed noogu imanaysa midkii ugu muhiimsanaa inaanu dawladda kor joogtayno dawladdu xukuumaddu waa arkaysaana waa taa ka warwareegaysa inay baarlamaanka hor timaadeen juhdiga aan qeyr caadiga ku bixinaysa inaanay hor imaan waxaan ku soo gabagabeeyay dawladdu way ku fashilantay xukuumaddu way ku fashilantay shaqadii loo dirsaday wax kale oo aan ahayn inay casishana uma eka marka waxaan leenahay aan ku ducaynaa mar rabnaba xataa inaad hadda hor timaadee waqtigaad hor iman lahayd wadigii ku ciyaaree iscasil ummadda Soomaaliyeed hadhisato dawlad adiga ku dhaanta oo shaqada ka soo baxda waa soo gabagabeeyay mahadsantihiin